Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu guys soo dhawaada waa mar kale iyo muuqaal kale aad iyo aad u qurux badan. Muuqaalkan wuxuu idinkaga imaanayaa muqdisho cadee. Asxaab badan ay arkaya ay dhahayeen niyo moohan oo falogada badaysay aad caasimada quruxda aad kusoo bandhigi jirtay madeynin waa ka yar mashquulo xoogaa barnaamij kale aan ku yar mashquulsanaa. Asxaab badan ay dhahayeen war niyo noo soo qabo noo soo duub laamiga cusub ee taleex la saaray. Dad badan waxaa jira reer taleex ah oo igu xiran oo qurbo joog ah marka waa kana muuqaalkiina halkan ujeedin waa isgoyska Soobe. Cidii taqaana Soobe xilligo ahaa Soobe ahaa laakiin hadeertan Soobe sana noqday. Taladan ujeedin waa 4 Oktoobar. Dabaqadan ujeedin ama sarada ujeedin waa isla isgoyska Soobe. Hadda waxaan u sii soconaa dhanka iyo 21 Oktoobar kadib 21 Oktoobar saas u soo galaynaa dan waxaan imaanaynaa dad hadda qurbo joogta fiir dabaqaana fiiri waa idinkaga dambeeyay soo Muqdisho way dhismaysaa. Muqdisho way dhismaysaa idinka idin baahan tahay halkaana marayno waa wasaaradda waxbarashada cidii taqaano laamiraha Soobe aad iyo aad waa ujeedin. Waxaan u sii soconaa dhanka iyo lambar 4 waxaan marayna hadeertan Soobe laamiraha Soobe aan soo dhaafnay waxaan soo soconaa waa soconaa dabaqaas ujeedin hadda cadaanta ah cadka ah ee aadka quruxda badan waa Muqdisho. Muqdisho waxay noqotay kaaliska arag. Hadeertan waxaan maraynaa cidii taqaano CID-da maasha Allah ilaahay wadankan u barkeeyo. Difaacana ujeedin waa difaaca CID-da waxaan afkar u saaranahay ama aan u dhownahay lambar 4 fiiri hoteelada laamida iska saaran amniga jawi degan quruxda badan maasha Allah ilaahay wadankeena hana nimceeyo warkaale iyo barafka ku dilin faraxo xaliimo iyo barafkeedii dilin wadankeena saari kaalaya san u dhaqaaleysta dabaqaanda fiiri waxa la sheegay department in laga dhigo umfaati oo dadka qurbo joogta ah wadankooda ku nasanayaan inay yani u soo dalxiisayaan qaybna anaga hadaan dukaana ka dhignana carwooyina laga furaa kaaliska arag ya waa intaas oo biyana waa dhowr qayb oo ku kooban yahay maasha Allah fiiri quruxdiis asagaba ku dhahayaba ha iga jeesanin warkaale idaabo inaa igu doogso asagaba ku dhahaba warniyaho wadankiina idin baa wadankiina dhista taaladaas ujeedin fiiri yaa yaqaano argadan waa argada lambar 4 maasha Allah ujeedin halkaa marayna waa isgoyska lambar 4. Asxaab badan ay dhaheen markaa muqto saaran tahay meel walba maraysid noo sheeg sax waay waan idin sheegaa. Argada ujeedin waa kana argada lambar 4 buntada hoosteeda maraynaa tan kadib waxaan ku dhacaynaa wadada 21 Oktoobar ama Afisiyoni. Okay dhahay moota iska saarana war adii fiiri jaam le maahane inta kale kaaliska arag moota iska fuuleysaa ya gidigan caada iskaga daawanaysaa gaarigiis xamuusha fiiri iska shaqaysanayaan dhalinyarada odayaasha iska xamaashta ya halkaan cidii taqaana sarax haddii guri dabaqaan fiiri wada miyaarada ah Allah ya cizag inzihom Allah inzihom in magac bulshada kulaha iskale Allah u barkeeyo ciyaal al-imra ay chief duuliya gacan dahabka marka lagu dhahayo wadankaaga wax u qabsanay kaas camal su'aad wuxuu sameeyay hadda buundada ciyaalka loo dhiso waatana buundada Afisiyoni ama 21 Oktoobar buundadan waxaa loogu talagalay ardayda inay ku gudbaan sababta ardayda ilmo yariisa ku jiraan wadada xagga ma u goy karaan laakiin buundaday soo fuulayaan dhac gidigaas kale u gudbaan nadiif safe way gaari jugsi iyo inta ka dhacday ma jirto alxamdulillah yani amnigooda waa la safe gareeyay maasha Allah waa. Marka hadda waxaan u sii soconaa dhanka iyo suuq beerta dhac ka soo siirna library ma aadayno isla wadadan aan ku soo noqonaynaa dan kadib waxaan aadaynaa dhanka iyo dabka soo fiirinaynaa ilaa isgoyska dabka dhac hadan madaxa u soo bixinaynaa ala dul waxaan ku imaanaynaa
isgoyska Soobe, isgoyska Taleex cafwan. So marka xaafadahan cidii taqaano reer xamarkow oo hadda wadanka ka tagay xaafadahan waa Villa Beria markii gadigaas loo fiiriyo. Yacni dad waxay dhahaan suuq beerta, dad waxay dhahaan maaj, waa beri dadka yaqaanaan. Gobolka markii saan loo fiiriyo Afridaafi ku taalo aad iyo aad reer Afridaafi canjira daafi aan ku taala baashaas canjira Ethiopian halkan ujeediin waa suuq beerta aad laamiga la saaraya waa la carra dhigay carkaaba la dhigay sameysaa ku socoto wadadaas oo waa la xiray hashaan wadaa la isticmaalaa. So marka wadanka wuu dhismay dowlad baa u dhalatay, Allah u ziyaadiyo dowladda, Allah u barakeeyo. So markii hadda waxaan sii aadaynaa dhanka iyo dabka muuqaalka isha ku haya intaa kadib waa codyo waayo codka soo xirmayo igu qaatalaha kale aad iyo aad mahadsantihiin. haddaad muuqaalka soo gaartay fadlan waxaa kaa codsanaa inaad subscribe ii saarto, like iyo share, comment dhiirigelin. midda kale waa soo codsan kartiin meel alaala meesha aragtiin, lacag idinka ma rabo. Odafaar waxuu mu ahaanow halkaas tag fiideo qurux badan igaaga soo duub, xaafadda hebel tag waa i dhihi kartiin, waa tagaa waa idinkaga soo duubaa. aad iyo aad mahadsantihiin. muuqaalka idinka subscribe sooraa shuruudaha wax yara iga dhiman wallahi bilaatala saa u dadaalaya waa ooraba marka shuruudaha wax yara iga dhiman 3,000 ii buuxiya please muuqaalada aan soo dhigo ii daawada.